sihayaha wasiirka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Bayle ayaa faahfaahin ka bixiyay kulan oo la qaatay xubno ka socday wadamada ku midoobay ururka jaamacadda Carabta kuwaas oo kamid ah dalalka caalamka ee Soomaaliya ku leh deymaha lacageed. Wasiir Bayle ayaa waxa uu sheegay in kulankan ay ka soo qayb galeen dawladaha jaamacadda Carabta, madaxda hay'ado dawladahaas laga leeyahay iyo sidoo kale xubno ka socday hay'adda lacagta adduunka iyo bankiga adduunka kuwaas oo ay ka wada hadleen lacagta deymaha ee Soomaaliya lagu leeyahay sidii loo cafin lahaa iyo sidoo kale horumarka dhaqaale ee Soomaaliya ay ku haminayso. Wasiir Bayle ayaa inta hadalkiisa sii raaciyay in ururka jaamacadda Carabta dawlado kamid ah ay kamid yihiin dalalka lacagta deymaha Soomaaliya ku leh, taas oo Soomaaliya ku baxday intii u dhaxaysay 60meeyadii iyo sidoo kale 90meeyadii intii u dhaxaysay 60meeyadii ilaa 90meeyadii laga soo gaaro. waxaana hoosta ka xariiqay in wadamadaas ay u soo bandhigeen dhowr arrimood oo la xiriira cafinta deymaha iyo sidoo kale halnaanka maaliyadda ee Soomaaliya iyo qorshaha Soomaaliya ay ku haminayso ee la xiriira dhinaca horumar dhaqaale ay samayso. waxay noqotay waqtigii la sheekaysan lahaa Carabta ee loo leeyahay kuna tiini daaya iyagu lacagaha ay nagu leeyihiin institutionska iyo dawladuhu waxa weeye ilaa $1 billion weeye ayay gaadhaa. waa shirkii ugu horeeyay oo ay noo soo qabanqaabiyeen hay'adooda Arab League la yiraahdo inoo soo magaranaysa inoo soo sameeyeen. marka halkan 3 saacadood oo dhow ayaan wada hadlaynay. si fiican baan iskula la faguray waxay nagu lahaayeen wixii dal waliba nagu lahaa iyo habkii ay u dhaafi lahaayeen. anagu xagga yaga waxaan leenahay waxa weeyaan waxaad samaynaysaan wax ka wanaagsan waxa adduunyada kala samaysay leena waxyaalo fara badan ayaa naga dhaxeeya. waxay sameeyeen waxa weeye waxa ay waftu samaysay waxa weeye waxa World Bank ku sameeyay waxa weeye idinku wax ka wanaagsan baa leedin ka rabaa. marka si fiican bay u hadleen, si fiican bay u qadarin u siiyeen sida ay Soomaaliya uga soo kabanayso dhibaatooyinkii. si badan ayay ictiraaf u sameeyeen dhibaatada weyn ee haysata ee coronavirus ka mid yahay iyo dhibaatooyinka kale ee dalka Soomaaliya haystay 30 sano ugu dambeeyay bay aad u ictiraafeen wana hadleen. waxa markaan ku soo gabagabeynay shir kale oo weyn la qabto oo wasiiradu ka soo qayb galaan, dawladdu ka soo qayb galaan. balana waxay ku qaadeen waxa weeye inay waxyaalo wax fara badan ay sameyn doonaan. marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay dhawaan hadii ay leeyahay waxaan qaban doonaa shirkii labaad oo this one ay ka soo qayb gali doonaan wasiirada maaliyadda iyo wasiirada arrimaha dibadda mahadbakiyo qaabilsan wadanadooda arrimaha noocan. dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa ay wali wadaa dadaalada ku aadan sidii guud ahaanba loo soo afjari lahaa deymaha lagu leeyahay Soomaaliya, taas oo wadamada caalamka ee leh laga dalbanayo in Soomaaliya laga cafiyo iyada oo la marayo hanaan hufnaan maaliyadeed oo loo soo bandhigayo sidoo kalena Soomaaliya ay ku kasbanayso in ay hesho maalgelin shisheeye oo lagu horumariyo kaabayaasha dhaqaale ee Soomaaliya. Awilin Dhacde, Galmudug TV, Muqdisho.